والشيخ آذن عبد الرحمن ورسمي ومعروف كو آذن سني دلك مركا مانتا لغو مقعاب الصومالي لان شلينا أها قبل الذي وقوي الصوماليا وحويا انتي بربر كدعي دولة دي مركا الصوماليا دا تكتيد دبديد سفي عنبا مركا سيبارك اللوغو فري فسحنا اللوغو سيي هاياتك دوليغا يكو انشي او يدا اقالة يكنيسدو كدن بيان ودا كان اودا لناي arrinta xan maaha waxa ku waramayaan ay ku hor jooga wax xogagaal naasix ah oo kamid ah aanad waxba u foojar gareyn kareynin si aynu wada ogsoonahay hay'adan oo tabshiriya ayaa markii aanu ku baaqnay dhibaatada ay wadaan laga qabto ummadda waa laga joojiyay NNM baa kamid aha somdef baa kamid aha dhuumasho dhabar ku muuqdaan ay dhuunteen daaqadana way ka soo galeen oo way soo noqdeen oo waanu ognay qaarkood baa baraarka iyo ariga dhaqa daarihi iyo sarihi ay ku jiraan markay xamili waayaan farta ku fiiqnay waxay dhan Soomaalidan oo ariga u dhaqaynaa qaarkaadna baabuurta markaa calaawiga ay Soomaalidu taqaano iyagoo kolanya ah bay markaa xuduud beenaadka iyo dhinaca hawdka iyo waqooyiga magaala madaxda Soomaaliland ay u kala baxaan oo aanay kala go'in oo islaamaha odayaasha reer miyiga ah oo dhaadan anaga idin biilinayna abaarta taala dhulka waynu ognahay iyo darxumada iyo biila'aanta iyo oonka $60 baa qoyska loo qoraa $60 waa inaanu awrkiisa iyo hashiisa iyo aanu markaa idihiisa dhaqanin $60 waa inaanu beertiisa falanin $60 waa inaanu dalkiisa khayraadka ku qarsoon aanu la soo bixin waxa weeyaan caruurtii yaryarayd ee dhalinyarada rag iyo dumarna madalaad iyo hay'ado kala gaar ah ayaa kala qaybsaday dhaqankuna way ka iibsadeen caqiidadana way ka iibsadeen waxa marxaati kugu ay namada yaryar ee Hargeysa iyo Burca u dhashay intaanan gobolada kale ba gaarin waa kuwa mar walba baraha bulshada fadhiya ee diintii shalay ay ku dhasheen ee lagu soo barbaariyay caayaya cid markaasi amni iyo suldad sheeganayso aamusiisa talaabo ka qaadana ma jirto bal TikTok ay soo fadhiistaan iyagoo siday doonaan Nabi Maxamed uu caayaya bacdama baadariyaasha diinta ku faafiyo qofkii ka hadlay hanjabaad cad heer madaxweyne loogu hanjabay qaarkoodna jeel ay maanta markaa u dhex hurdaan iyo xabsi waxaynu ogsoonahay wax kasta oo wada kullu daa lahu daabay tiri gabadhii markaasi xadiis mustarci ku jirtay cudur oo dhan baa cudur ah balaayada adduunka oo dhan baa loo soo waariday muxuu ahaa markaa Afrikaankii Botswana ka yimi dhaqan xumada ragga lagu sameeyo markaasi hogaaminayay kii Mareykanka ah dhaqan xumada ragga lagu sameeyo hogaaminayay naagtii Ingiriiska ahayd markaa genderka iyaduna waday ilaahayda hablow raka marma oo inaniba inan ha ku maaranto Hargeysa sacabka loogu garaacay xarunta ay ku leeyeen book fire la yiraahdo ayaa sacabka loogu garaacay madax iyo mijaba waa la taagnaa maalinta sacabka la garaacayay wadaadadii ka hadlaan ka midna heloo haydartay arinta loo dhibay cid kale oo ka hadashayna ma garanayno oo aan ahayn cid aan markaa sawdkeedu aanu muuqanayn aan ka ahayn cid kale oo ka hadashay ma garanayno waxa kamida markaasi kuwii kala dambeeyay ee Kenyaanka ahaa beebelada qaybinayay ee iyagu markaa gacantooda dalka kaga soo saareen imika maxaa ka socda dhulkii hadda aynu joogno haddadan maxaa ka soconaya waxa weeyaan markaasi bulshadii baa fasax lagu siiyay way hantiyeen dawaa'irta tacliimiga iyo tarbawiga oo dhan waxay la galeen meelo markaasi iyaga u gaar ah ilmuhu waalid iyo wadaatoona rasmiyan ma arko waxyaabaha mandarka la soo dhigay foojariga laga dhigayo waa waxba kama jiraan tacliintii hoose iyo ta dhexe iyo ta sare intiba gacantay ku hayaan faracyo ayay u sameeyeen dalka oo dhan baa la rabaa waliba in markaa tuulo walba la gaarsiiyo waxa la rabaa markaasi tacliin qarbi ka timi oo ku dhisan mabaadi kufri iyo dimuqraadi iyo markaa ilhaad iyo diin la'aana in dadkii lagu rabeeyo markaas looga dhigayaa meelo tarbiyad iyo dacwadda islaamku ay ka socoto waxaan isweydiinayaa meelo markaa ay haystaan nimanka gaalada gaar ahaan Kenyaanku oo la magac baxay markaas yaan muslim magac islaam baa lagu bixinaya yaan muslim maalintii aan ka hadlay beebelada ay dhigayaan iyo manhajkii Kenya ee kaniisadoodu ku taalay dhigayaan ardayda gacanta ku sidata aan soo bandhignay waxay yiraahdeen waa meel islaamka lagu faafiyo mid Kenyaan kamid ah soo islaamay hadda waxaan maqlayaa aan dalkii ka imi abaarsa tijo yani markaasi saqalaynkuba ay ka dhareegsayin habarta indhaalina og tahay baa la leeyahay waa meel dacwadda islaamka laga faafiyo waayahay baadari Mareykana
iyo shaqaale Chinese soo dirtay iyo kuwa kale oo la midihi ma dacwadda islaamka ay faafiyaan ma akhlaaqda suuban ee diinta islaamka ay dhigaan bal hadda waxaan u bandhigayaa ragga markaa iyo dumarka adduunyada ku nool wixii caqli leh noocay doonaan ba ha noqdaan arinta iyada ah midda kale mahmaaba jirta waxa ay tahay ninkii wiilwaal la oran jiray baa leeyahay ayaa wuxuu yiri mahmaaba qisay ku saabsanayd qisada uma bixi karaye saacna saadag iyo sawdka maxay isku soo beegay maanta aadan sunna idinka yimi iyo abaarsa tijka islaamay ee maalintii horeba lahaydan wuu islaamay Kenyaanka ah maxaa ugu soo celiseen baraha isugu wada tagteen inta markaa ku faafiseen bulshada waxa weeyaan markaasi waa saxab xeeladu ku jirto laakiin waxaan leeyahay culimada arinta ku hawlan iyo ragga siyaasiyiinta ah hadda maanta waa ayaamo yaro adduunyada ah berri markaa qof waliba dhintay ilka la dhigo waa la soo baxayaa wali malaameydaan iloobin qiyaama inuu jiro waad ogtihiin waana rumaysantihiin ilaahay hortiisana muhaasabada waa imanaysaan markhaatiga shaahidka Mareykanka iyo Kenyaanka gaalada ah iyo dadka diinta ku soo duulay dalka u furaysaan inay meeshay hayaan maxal dacwadeed oo diin laga faafiya ay tahay ilaahay maxaa ugu jawaabi doontaa illa rasuulku uu idin digay calayhi salaatu wa salaam oo waxa uu ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashil lir'iyatihi illa harrama Allahu alayhi aljanna ma jira adoon xil ilaahay u dhiibay bani aadan iyo qeyrkiiba dhinta maalintii ashashiisu dhamaatay allana hor yimaada isagoo khiyaameeyay ra'iyadii iyo bulshadii loo diray ilaa haduu jiraba ilaahay jannada uu ka xarimay ka fiirsada xadiiska saxiixa muslimka ku sugan isu bandhiga idinka nafihiina cid walibna waa inay isu bandhigto liana marka shahaadatu sur baan arkayna hora u tidhaahdeen kutubay ku faafisay jayisa jaamacaday haysato afar kitaab ayaa labaatino diinta islaamka kamida waxa dhexdeeda yaala maktabada weyna waa la ogyahay cid waliba oo ogtay kuwa jooga iyo kuwa dusha ka eegayaaba bal hadda waxaad markhaatiga furaystaan mid kale waxaan idin sheegaya Kenyaanka aan hor wadaan maalin walba leedin nin Kenya islaamay shuruudaha qofku markuu toobad keeno laga rabaa waa maxay waa kan ilaahay quraanka ku sheegay qolada ahlu kitaab iyo yahuudba iyo munaafiqiintooda marka ay ilaahay toobadooda aqbalayo illa alladina taabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atubu alayhim wa ana tawwabur rahim shuruuda ilaahay dhigay eeg yahuudi iyo nasaara iyo munaafiqiin ijraamka iyo gaalnimadii markay ka toobad keenayaan toobad shuruudihii dhameysata laga raba islaax amalkoodii hagaajiyaan ba laga raba waxay fasahaadinayeen inay bayinaan ummadayday marka dhaqanka ka bedelanay diinka saarka ku wadeen faraha ma ka laabteen mise halkii bay ka wadaan ma cadeeyeen waxay fasahaadiyeen amalkoodii ma suubiyeen shaqadan marka xunay hayeen ma ka tageen adduunyada markaasi caan ma ku noqdeen kuwii toobad keenay gabadhii marka Soomaaliya ku islaamtay toobadeeda siday u cadaysay Talyaaniga ahayd waynu garanaynaa tii Faransiiska ahayd ee Maali ku islaamtay markay toobadeeda markaasi ay la timi toobad markaasi nasuuxa ah siday u bayintay waynu garanaynaa hadaa run sheegaysaan toobadoodu ha cadaato caalamka ha gasho warbaahinteeda hana ka toobad keenan saniica xun iyo markaasi hoosiiska ay ku jiraan ummadeeda lagu khiyaamaynayo waxay tahay marka halkaasi waa booraan afkii laga qafilay oo qabarna hooseeyo sheekada ka wadaan imaanshiyan halkan imi dabadeed iyo boorikaaska ay maka boorikaariseesan waxaan aniga markaa sababahan halka uga imi waxay tahay in yaro nabigeyga caayay talaabo laga ma qaadi karo anna awoodu malihi naag baadariyada ama kaafirada ama markaa kaniisadu wadana waxa weeyaan markaa cidi talaabo kama qaadi karto maalintii markaa naagtii la oran jiray maxay ahayd Maryana kaniisada Hargeysa ay furtay frontier-ka sheeganaysay tabarruc kaniisada Hargeysa kaga furaysa Catholic ma la hadlay mise waa la canaantay in shakhsiyad aan magacaabaynin imika oo raad ku lahayd ba fariinii soo dirtay waan ka bari noqdo waan eriyay sheekhadan waxa tidhaahdaa haygu darin anigu taamo ogiye waxa weeyaan may nabad gasheen dalka dhibaatada ay keentay hadii talaabo laga qaadayo waxa soo dhan marka maxaa markhaati cad u ah waxaanu haynaa maanta qoysas Soomaaliya oo qabaa'ilkeenu ka dhalanay ku abtirsado wada Kristaan jeelashiina ayay galeen qaar fara badani inama yahabla ayaynu haynaa rag iyo dumar baynu haynaa waxaynu haynaa markaasi waliba bulshadan ay gaaladu maanta u doodo madaxda siyaasiyiinta ay yiraahdaan gaaladu waxay nagala hadashay aqaliyadka inaynu xaqooda siino manaasibta dawliga ah iyo markaasi hay'adka iyo marka dawladka dawladda meelaha ay ku lahayn kaalmada in nasiibkooda la siiyo kuwa loo dooda
وكوا مركاسي وين دين تكبحي وحكلوا مركاسي أنو كده ركسني دابو ردن يا جماعة دن يا كوحدن أو قوم اللوضة إنه كوها إنه مركاسي ليش ودنك وحتى لا بلا قاعد مجرو حرق مركا لغو بيليه جيلka dhexdiisana wax qiimo ama tarayo waliba waa tusaale yar oo dadku markay wax arkaan lagu aamusiyo waxyaabaha la qabtaa leeyahay marka qoys Kristaana la qabtay iyo qoomuluud isqaba waxa weeyaan dadka ayaa lagu seexiyaa ayaamo ayaa jeelka lagu hayaa hay'ad baa u diyaara iyo kuwa xuquuqahooda gaalnimo iyo gender iyo jinsi ilaaliya dibadda jeelka waa laga bixiyaa waxa markaa aynu asturi karayn Soomaalida tiri markaa sakaara xaar muuqda bay aasaastay hadii markaas nidaamka Soomaaliland ka jira uu toobad keenayo dalkiisa uu markaa 30 sanadood ka badan mahalakada ku sii wada ee uu qoolka u galiyay gaalada uu ka furayo de waxa weeyaan markaa waxay noqonaysaa bayina cad iyo toobad cad ayay noqonaysaa waxba yeynaan dadka kala xaganin waxaan dadka aan maanta la hadlayaa ay tahay aniga halka waxa iga keenay dhibaatooyinka noocan oo kala ah iyo kuwa kala badan oo sheegaynin weyna sidoo wuxuu og yahay uma waramo waxaan si horta naseexada u diraya waalidiinta baraha markaasi dhaqan bedelka iyo diinka saarka ubad u dhigto waa hilba aynu wada leeno laxiyo dambi ban isku nahay waxaan ahay nin culimo oo naasix ah waayeel waalida baan ahay oo hilbihiisu u damqanayaan dhallaankayga wadanka waxaan leeyahay caruurtiina barayaasha aan soo sheegay iyo faracyadooda iyo meelahooda kala baxa